بسم الله. إسماعيل ورسامة وادن سلامة دمانتي سودو هذا. سودو هذا مرلبات. maanta waxaan jecel lahay inaan isla soo qaadno dalka Soomaalida waxaa ka dhacay dagaal sokeeye oo horey loo arag dabcan dhibka soo dhacay iyo waxyaalaha dhacay iyo xasuuqa iyo dilka iyo burburka nabad xumada iyo waxaas oo dhan isaga sheekayn mayno ay la tahay nin walba waa ka dhigsan waxuu tigiina xataa banaanka jooga ayaa oo waxa idin geeyay halkaas waa dhibkii Soomaaliya ka dhacay dagaalkii sokeeye inkastoo aan technically wax la yiraahdo yani farsamo ahaan aan wali laga heshin oo dib u heshiisiin dhab la sameyn haddana hadda waxa la oran karaa waxaynu joognaa dagaalkii sokeeye kadib waxa dhashay nidaamkii federaalka ah baa dhashay dowlad goboleedyo ayaa Soomaaliya ka hirgalay طبعا dagaal ka soo baxay dibadhis buu u baahan yahay hase yeeshee gobollada qaarkood sida Puntland iyo Somaliland xaaladii bini'aadnimada waa hore ka soo baxeen tii ka soo kabashada dagaalka sokeeye waa hore ka baxeen waxay hadda ku jiraan wax la yiraahdo horumar ama development inta kala Soomaaliya markii jubayaasha la fiiriyo gedo koonfur galbeed Soomaaliya galmudug hirshabeelle kulli waxay ku wada jiraan xaaladii bini'aadnimo ayay ku wada jiraan quudin bay u baahan yihiin iyo gargaar degdega meesha Puntland iyo Somaliland ay u baahan yihiin mashaariic horumarineed yani mashaariic baa furan maalgelin bay u baahan yihiin ama ha ka yimaadeen beesha caalamku waxay dowladda federaalka ugu deeqdo ama ha ahaato toos wax loo siiyo oo beesha caalamka ka yimaada oo maarta horumarkaas marka dowlad goboleedyadu ay soo fariistaan oo shir leeyihiin iyo dowladda dhexe haddii qolo walba tiraahdo waa simanahay isku si wax naloo ka qaybiyo dee arrintaasay idinla tahay macquul miyay tahay ninna wuxuu u baahan yahay gobollo wuxuu u baahan yahay quudin iyo bini'aadnimo iyo ceelal iyo biyo u baahan yahay ninna mashaariic baa ku furan oo wadooyin iyo hay-ado iyo kaabayaal dhaqaale iyo waxa la yiraahdaa microeconomics xagga dhaqaalaha iyo ku saabsan maartay bangiyada iyo financial institutionska kalluumaysiga hadii la kordhiyo xoolaha maartay xanaanada xoolaha waxaas oo dhan buu horumar bay ku tilaabsadeen gobollada qaarkood suuragal ma tahay markaa waxa gada u baahan tahay iyo waxa Puntland u baahan tahay ama gobol Puntland u baahan yahay iyo gada ma isleekaan kara waxa Jubaland u baahan tahay iyo Puntland ma isleekaan kara yani xaq soo oo waa run oo wax loo sameeyaa la rabaa laakiin dalkii siyaalo kala gedisan buu u koray oo dagaalkii sogeeyay uga soo kabmay marka suuragal maaha masalan galmudug iyo Puntland la simo oo inta badan galmudug ay xaaladii bini'aadnimo ku jiraan waxyaalaha dhaca waxa weeye Puntland khaladaad waaweyn bay gashay wasiir junior oo aan saasna experience u lahayn hal sano ama 2 sanana xataa access aan madaxweynihiisa u lahayn oo uba taginba yani xamar markuu tago loo diro la yiraahdo mashaariic ka soo hadalo la shir dowladii federaalka ahayd dowlad goboleedii muxuu ku soo kordhin karaa ma difaaci karaa xuquuqda maarta ay leedahay Puntland ma garan karaa yani miisaanka
puntland ay leedahay xagga mashaariicda horumarinta iyo kuwa ay gado u baahan tahay masalan marka xaaladaas waxaan ka baqayaa inaysan puntland ku baraarugsanayn waayo wasiiradeedu markay xamar tagaan arrinta aqoonna uma leh accessna uma leh haddii laakiin dunida waxa ka socdana ma yaqaanin taariikhda xataa puntland lama soo socda horta si aad ogsoon tihiin waxa kan waxay ka soo jeedaan hadda horumarintan waxyaalaha Soomaaliya la siiyay wixii la oran jiray New Deal Brussels lagu saxeeyay Xasan Sheekh Maxamuud termkiisii hore ama markuu madaxweynihii hore ahaa uu soo saxeexay xagee uu ka yimid New Deal kaas waxaad ogsoon tihiin 2005 ilaa 2000 iyo waxaan leeyahay 5 ilaa 2006 waxa la sameeyay daraasad ku saabsan Soomaaliya si dib loo dhiso Soomaaliya waxa loo baahan yahay in daraasad lagu soo sameeyo saddex waxa la sameeyay gudi oo farsamo mid Soomaaliland mid Puntland iyo mid South Central Soomaaliya ama Soomaalida Koonfureed anigu waxaan hogaamiyay kii Puntland waxaan soo saarnay book Somaliland book baa ka soo baxay daraasada ku saabsan South Central mid baa ka soo baxay waa la isu geeyay hal book baa laga soo saaray waa buuka maaragtay New Deal ku salaysan yahay 2 bilyan baan waaga ku qiyaasay 2 bilyan wayadii lagu saxeexay meesha la yiraahdo Brussels oo Xasan Sheekh Maxamuud markii laga baxay ku meel gaarnimada transitionkii oo isaga soo saxeexay waxa loo baahan yahay marka dawladda Puntland inay ku baraarugto roolkeeda ah inaysan suuragal ahayn in lala simo gobol ama deegaano u baahan bani aadamnimo iyo waxa ay Puntland u baahan tahay xagga horumarinta waa khalad wasiir yar oo aan la socon arrimahaas in loo diro xamar oo la soo xaajaysto dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kale ama xataa hay'adaha caalamka waayo waxaas waxba kama oga waxay u baahan tahay siyaasad go'an oo inta la fariisto la qeexo guidelines wax la yiraahdo jihayn Puntland siyaasadeeda ku saabsan mashaariicda marka lala xiriiriyo hay'adaha caalamka ama lala xiriiriyo dawladda federaalka Soomaaliya intaas aan rabay inaan maanta idin la wadaago aad iyo aad baa u mahadsantahay